Almost 100,000 Australian bank customers may have had their private details exposed in a cyber attack on Westpac's Pay ID system. Cyber experts and government officials are scrambling to contain what some are calling the worst cyber vulnerability in history. The US government's investigating a massive cyber attack. Hackers, big breach. adduunka aan maanta ku noolnahay waxa uu ku tiirsan yahay hab isgaarsiineed oo casri ah kaas oo intiisa badan ku shaqeeya adeega internetka. haddaba shay walba oo ku xiran adeegaas internetka waxa uu u nugul yahay in la bartilmaameedsado. tusaale ahaan marka aan fiirino shirkadaha waaweyn ee ganacsiga gaar ahaan sida isgaarsiinta, bangiyada, suuqyada ganacsiga caadiga ah, isbitaalada iyo bulshadaba kulli waxa ay ku xiran yihiin internetka. wayna isku wada xiran yihiin. isku xirkooda waxaa sahlaya internetka. sidaa darteed wax walba oo ku xiran internetka khatar ayay ku jiraan. laakiin bulshada intooda badan khatartaas kuma baraarugsana maxaa yeelay dadka badankooda ma haystaan wacyigelin ku filan. sidaa darteed nolol maalmeedkooda caadiga ah ayay iska wataan. laakiin waxaa midaas barbar socda dagaal toos ah oo adduunka guntiisii hoose ama cirifkiisii hoose ka socda, bartilmaameedkuna yahay qof walba. maanta adduunka waxa attacks ama dagaal dhanka internetka ah ka socda ma malaysan kartid. qaab loo xakameeyo ayaa la la'yahay. kaalay ila fiiri oo arag waxa ka socda adduunka maanta. xogtan waxaa soo saaray baarlamaanka midowga Yurub. waxay leeyihiin cyber security threat have been on the rise. macnaha khatarta dhanka internetka ka jirta kor ayay u kacday. macnaha kor ayay u kacday waxa la jeedaan markii uu dhacay COVID-19kii khatar weyn ku soo ziyaaday. COVID-19 ayaa looga faa'iideystay. baarlamaanka waxay leeyihiin kor u kaca dhanka teknolojiyada wuxuuba keenay ama uu horseeday in ay kor u kacdo sidoo kale khatarta dhanka internetka. cyber criminalska ama dadka hackerska loo yaqaano waxay ka faa'iideysteen COVID-19 gaar ahaan waxay si gaar ah u bartilmaameedsadeen kambaniyada ama shirkadaha u ogol ama sida gaarka ah yacni looga shaqayn karo qaabka remotely waxa way gurigaaga aad joogtid ayaa shirkad kale oo ka dheer ayaad u shaqayn kartaa qaab online ah. marka baarlamaanka midowga Yurub waxay soo saareen wacyigelin taasoo ku aadaneed ama ka tarjumaysa khatartii dhanka internetka ee soo ziyaaday. sidoo kale waxay soo saareen tilmaamooyin ku saabsan yani sida la isku difaaci lahaa ama loo ilaalin lahaa xogaha aasaaska ah. marka baarlamaanka midowga Yurub ayaa inta ay fariisteen waxay ka shirayaan khatarta dhanka internetka ah. runtii xogtan update ma aha oo inkastoo update la dhihi karo sanadkan dhexdiisa ay tahay laakiinse Janaayo ahayd. aanu imaano marka hadda xogta update-ka ah oo isbuucan dhexdiisa wixii dhacay adduunka ku saabsan cyber attacks-ka ama dagaalka dhanka internetka ah. marka fiiriso jariiradan The Daily Swing waxay soo saartay akhbaaraad ku saabsan dhanka internetka security-giisa. tusaale ahaan the latest critical infrastructure security news-ka hadda jiro macnaha xogta ugu dambeysay ee dhanka security ku saabsan warbixinadooda waxa ugu dambeysay xogtan oo la soo saaray 10 May oo ahayd shalay. maanta waa 11 shalay ayaa la soo saaray. waxay ku saabsan tahay Cyber UK 2022. United Kingdom ayaa waxay xanibtay 4 jeer ayay xanibtay 2021 la soo dhaafay cyber scams wax loo yaqaan. cyber scamska waa in wax fake ah wax yani xog fake ah inta lagu soo gudbiyo ama email fake ah in lagu soo diro waxyaabahaas la dhahaa scamska. tusaale ahaan haddaan fiirino waxay leedahay xogtan in ka badan 2.7 milyan oo scams ayaa laga saaray shabakada internetka ee dawladda Ingiriiska 2021. xilligan waxaa ku mahadsan dawladda Ingiriiska oo ballaarisay hab difaacooda cyber space ama cyber security 2.7 million scams. runtii aad u weyn tahay yani number aad u weyn waa. intan ogaada waa inta la ogsoon yahay. inta aan la ogsooneyn ayaa intan ka badan xaqiiqsataas.
sidoo kale waxay leeyihiin warbixintan sidoo kale 5 May 10 May yani sidoo kale xogtan fiiri waa 10 May waa shalay waa iidan hadaan fiirino xogtan waxaa soo saaray AU soo saartay waa midowga Yurub soo saaray waxay leeyihiin midowga Yurub Ruushka ayaa ka dambeeyay cyber attack oo lagu qaaday satellite network kaasoo hakiyay infrastructure-ka Ukraine marka waxay leeyihiin suspected DDoS waa nooc ka mid attack-da la qaado ayaa lagu qaaday hal saac ka hor inta uusan Ruushka ku qaadin dagaalka Ukraine marka taas waxay leeyihiin waxay saacidaysaa Soomaaliya yani dagaalka waa xeelad ka mid dagaalka waaye haddii internetka laga istaajiyo ama isgaarsiinta laga hakiyo yani waxay qayb ka qaadanaya inaysan xitaa aysan isgaarin warbixino aysan iska helin yani xafiisyada ama stationada ama saldhigyada inaysan warbixino iska helin oo update aysan isiin karin waa xeelada dagaalka Ruushka waa marka Europeanka waxay leeyihiin midowga Yurub waxay leeyihiin waxay ku eedeeyeen arintan Ruushka waxay leeyihiin taas waxay leeyihiin waa powerful cyber attack runtii waa xeelad ka mid xeeladaha dagaalka waxay dhaheen thousands of modems kumanaan modemku waxa waaye qalabyada bixiyo information ama isgaarsiinta inay meel ka qaado meel kale ay geyso qalabka gudbinayo isgaarsiinta ayaa modem loo yaqaan ayaa offline laga dhigay macnaha offline waxa waaye wax ma gudbin karo marka dagaalkan wuxuu qaaday Ukraine wuxuu ku qaaday Ruushka 24 February maalintaas hal saac ka hor ayuu Ruushka ku qaaday dagaalkan internetka warbixintan waxaa la soo saaray shalay gaar ahaan 6 saac waa xalay 6 saac ay soo saareen ani 6 saac markay ahayd marka real life-ka dagaalka hadda socdo balaan fiirino real life dagaalka hadda socdo website-kan wuxuu ku tusinayaa dagaalka hadda socdo live-ka ah ee adduunka hadda ka dhawayo wuxuu leeyahay attacks on this day attack hadda dhawayo 5 milyan oo attack ayaa saacadan hadda socdo marka dhanka bidix fiiriso wuxuu ku tusinayaa dadka lagu qaadayo yani dagaalku uu ku dhawayo sida زائد وسعود صوت أفريقيا هذه الشيء خبط إسرائيل تركيا نفتر كذا هذا أنجو يعني تاجر وسوسمي إن إسرائيل أو بدن أستراليا لو قاضي مركا يعني وحب كتصيني سا التاجا إن أوسن حدود لهن فراه كبحسني هاي وحل حكمين كرمان برلمان ذي أدوك كشرويو بدنا حجهان يعني مو مقنع محايلة نباتوين اللي هذا هذه حجهان إذا عضو consequences اللي هذا هاي damage badan ama dhibaatooyin badan ayaa wadanka sumcadiisa iyo dhaqaalihiisa soo gaarayo oo aan faahfaahin dheeraad ka bixin doono Philippines lagu qaaday sidoo kale China dhexdeeda taa ka dhacay United Kingdom iyo Mareykanka marka wadan kuma qaadayo aan cadeeyo waxaan meesha laga soo qaaday waa taaga yani hada Ruushka dhexdiisa xitaa ay dhexdooda isku sameeyeen it means meesha taaga laga soo qaaday waa meelaha la bartilmaameedsadeen wax ugu weyn waxbarashada iyo dawladda iyo caafimaadka yani meelaha xogaha laga helo almuhim xogtan waa xogta la haayay ee diiwaan gashaneed ee markale inta la isticmaalay shabakadaha difaaca ay qabteen intaan hadda socdo waa inta signature-kooda hore loo haayay warbixintooda la diiwaangeliyay dib inta loo isticmaalay la aqoonsaday oo la qabtay waxa ula jeedaa tusaale ahaan hadda waxaa jiro website-yo مثلا website ku cadeynayo application-kaaga website-kaaga file-kaaga in uu virus uu ku jiro iyo in kale website-daas waxa kamid ah anti-scam.com website badan jiraan laakiin se aniga isticmaal kan waaye virus total jiro no distribute waa badan yihiin mid kana isticmaala مثلا انا waxaan u isticmaalaa markaan sameeyo malware ama virus ama maragtay backdoor ama marka wax sameeyo aan ku tijaabiyo tusaale ahaan virusyada aan sameeyay mid kamid ah oo kale hadda fiirino midkaan oo kale hadaan fiirino aan dhahno tijaabi midkaan HTTP loo isticmaali karo scan igu sameey oo ku jeegareenaya wuxuu ku tusinayaa inta antivirus application kan ama virus kan qaban karto iyo inta aan qaban karin marka fiiriso فايلك magaciisa aan geliyay tijaabo waaye yani file aan sameeyay waaye waxa qabtay 26 antivirus oo ku baaray 15 kamid ah wuu baasay
15 kamid ah wuu baasay waada kuwa kaliinka ay ku qoran tahay oo kala waaye kuwa oo guduudka ahna waxa waaye way qabteen viruska noocu yahayna ay sheegayaan waa la qabtay kuwa hadda qabtay oo kale u jeedin inta waxa kamid ah Windows Defender ka kamid ah Trojan uu aqoonsan yahay yani kuwa kaliinka ah it means waa mari karaa waaye yani waa garan karaa ayagu u maleynaa inuu file legitimate sax ah yahay marka hadda xogtan halkan ka muuqato macnaheedu waxa waaye kuwa aan qabanin ayaa jiro oo ka gudbay systemka difaaca networkyada ama device-yada ama systemyada saas daraadeed bulshada yani wacyigelin badan ma haystaan marka waxaa jirto fikrado dadka iska dhaadhiciyaan oo ay ku dhahayaan مثلا هدي أنيجا أو لأتاجري وكلا أما حكتي ذي الحلو محل إيه فائدة runtii khatar badan ayaa kugu imaan karto meeshan waxaan ku cadeyn doonaa videoga xigo insha Allah taala khataraha kugu imaan karto hadii xogtaada la helo hadii hackeriska ama dadka criminalska oo internetka dambiilayaasha ka ah mooryaanta internetka hadii xogtaada helaan ama ay ku jabsadaan ama kambanigaaga ama shakhsiyadaada xogtaada banaanka ay baxdo maxaa kugu dhici karo khataraha kugu imaan karaan oo lagu soo koobay ilaa 5 qaybood waxaan ku faahfaahin doonaa insha Allah videogan xiga haduu ilaahay idmo inuu video iga dheeraado ma rabo uljeedkayga iyo muhiimadeeda ma ahayn in aan idin tusiyo sida attacks-ka adduunka maanta uga dhacayaan oo kaliya laakiin uljeedkayga wuxuu yahay in aan idin ogeysiiyo in Katib Academy ay diyaar u tahay in bulshada Soomaaliyeed ay ka haqabtirto ama ay u soo gudbiso warbixinada ku saabsan cilmiga information security-ga asagoo ku baxayo af Soomaali fadlan qof walba oo daawanaya muuqaalkan nagala qayb qaado in aad muuqaalkan si faafiso aad u gudbiso si ay macluumaadka ku jira muuqaalkan ay uga faa'iideystaan bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala gedisan ganacsato arday iyo dhamaan yani bulshada si guud marka waxaan isku dayi doonaa in cilmiga cyber security-ga oo af Soomaali ah in aan bulshada Soomaaliyeed uga faa'iideeyo inta aqoonteedii ah qofkay soo gaarto waxaan ka codsanayaa fadlan si faafi oo si gudbi oo walaalka kala gaarsii wax uun buu ka faa'iidi doonaa haba yaraatee aad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inuu muuqaalkan xoogaa dheeraaday insha Allah taala inta muuqaalka xigay ku wada kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo